shirkan jaraa'id ee taliyaha ciidanka xoogga dalka oo warbaahinta ugu qabtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho ayuu kaga hadlay guulihii ugu dambeeyay ee laga gaaray howlgallada ciidamada xoogga dalka ay ka wadaan gobolada Shabeellada Hoose, Jubbooyinka iyo Gado. ciidamada xoogga dalka ayaa intay ku guda jireen howlgallada waxay maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay ka saareen deegaano badan oo ay dadka shacabka ay ku dhibaateey jireen nabadiidka, taasoo qasabtay in ay soo dhiibaan maleeshiyaad iyo horjoogyaal badan oo ka tirsan argagixisada sida uu sheegay Sareegaas Daahir Aadan Cilmi Qarshe. ciidanka marka abaabul aad iyo aad badan buu ku jiray dagaalo fara badan oo kala duwan oo kala noocna lagu sameeyay, dhammaantoodna guul baa laga gaaray. ujeedadii laga lahaa baan 100% wax dhici kara fulinay, waanu sii soconaa ma soo socono, horaan u sii soconaa, waan dhammaystiraynaa insha Allah. waxaan rabnaa sanadkan 2019 inuu noqdo sanadkii ay ka baxayeen gacanta nabadiidka dalka Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed aan uga farxiyo oo u sheego awood badan buu leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aad iyo aad ugu filan inuu ku dagaalamo ama la dagaalamo nimanka nabadiidka. sidoo kale in khasaaraha uu gaaray Al-Shabaab ay markhaati ku tahay inay meel walba gobol kasta ay iska soo dhiibaan oo maanta xoogga dalka Soomaaliyeed uu ku hayo dhowr iyo 30 nin oo Al-Shabaab oo wali aan gudbin oo wali ku hayna gacanta ku hayna oo ayagu isu soo dhiibay iyo qaar la qabtay laakiin inta badan isu soo dhiibay. waxaan maleynayaa talooyinkay hore ay qaateen qoliyaha isu soo dhiibay markay waxay arkeen in warda khaldan ay ku taagan yihiin. taliyayna Qarshe oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in sharciga la horgeyn doono cid waliba oo warar been abuur ah ka fidisa ciidamada xoogga dalka, wuxuuna carabka ku dhuftay in haba yaraatee aysan jirin hub lagala baxay keedka hubka ee ciidanka xoogga dalka. arrintaasi waxay dawladda Allah waxaan ka sheegay waa beenta abuurka saldhigga ah ee propagandada Al-Shabaab loo fulinayo maqaasiimada xoogga dalka Soomaaliyeed ama kuwa gaashaandhigga ha noqdo ama kuwa qaybaha ha noqdo ama meel kasta ilaa hadda lama hayo taariikh hal qori oo laga qaatay. marka warkaas waa war been abuura oo san lahayn cid alla cid u baahan oo wariye dhab oo lilaahi qabtana diyaar baa una inaan tusno ama meel kasto ciidanku degan yahay inaan maqaasiin laga qaadan xubna la jabsan meel la jabsan ay been abuur way warkaas warna raadna ma laha warkaas. ciidamada xoogga dalka ayaa bilihii ugu dambeeyay si laba jabaaray howlgallada iyagoo kala wareegay maleeshiyada Al-Shabaab deegaano dhowr oo ka tirsan gobolada Shabeellada Hoose iyo Jubbooyinka, taasoo lagu weeqay awoodii isbedday maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab. Maxamed Xasan National, idaacadii TV-ga qaranka, magaalada Muqdisho.